barakaatu kusoo dhawaada dooda maanta ku saabsan Somaliland Citizenship Act-ga oo ay qabanayso xarunta falaqaynta siyaasadaha Center for Policy Analysis magacaygu waa Hanama Salaad oo ah program officer-ka program manager-ka CPA marka koowaad Center for Policy Analysis waxa la aasaasay 2015 normally waxaad ku barateen activities kan qabano oo ah events habeenka kasma wadaag oo aan ugu ah Center for Policy Analysis taas iyo trainings iyo dialogues iyo debates tani ay maanta kamid tahay waxa kale ujeedadii loo aasaasay CPA hadaan idinka siiyo in yar kooban waxay ahayd peace, democracy, human rights iyo good governance system oo ah effective shaqeynaya inta CPA kaga yimaado waxaan maanta ka hadlaynaa citizenship lawga marka loo eego walibana haga womanka waxaan ku soo dhaweynayaa mudane Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo ah gudoomiyaha ku-meel gaarka xisbiga wadani ahaan jirayna golaha xildhibaanada gudoomiyaha ku-xigeenkii hore golihii hore kana mid ahaan jiray membership golahan maanta xilka haya golaha xildhibaanada kusoo dhaweey mudane bismillaahir rahmaanir rahiim deewaan idinku mahadinaya martiqaadkan ugu martiqaadeen inkastoo jeclaa in bil ka hor ii soo sheegtaan oo aan diyaar garoobo sidaa soo diyaar garoodeen anigu waxaan gudageli maayo xeerka backgroundku ku yimi waxaa Soomaaliya idinka sheekeynayaa waxa weeyeen xeerarku markay dhalanayaan ama la samaynayo kuma yimaadaan dee kama soo baxaan environment politically sterile oo clinical environment dhigi oosle sidoo ilmuhu u dhasho markuu dhalanayo isagoo dhigi ooslo soo dhasho xeerarkuna sida iyaga oo duruuftii ku yimaadeen oo hayaan baa loo soo maray iskama yimaadaan laba act baan had iyo jeer dadku interchangeable oo la isweydaariyaa la isku qaldaa ama dee adduunku halku maanta marayba inta badan isu dhow mid waxa weeye nationality law muwaadinimada dhalashada jinsiyadda midna waa citizenship mid waa acquired oo acquire garan kartaa oo citizen of a country oo noqon kartaa laakiin nationality-gu inta badan waa wax natural oo dhalasho haddaynu soo qaadano taariikhda dib u yar noqono halkay ka bilaabantay the idea of citizenship Europe waxaa daashaday dagaallo diiniya waa maqasheen religious warskii Europe ka dhici jiray mar 30 sano ay socdeen mar 100 sano ay socdeen waxaana la isu dili jiray Protestant iyo Catholic oo xukun baa la isku dilayay nation state waxa la markaa dhashay walka nation state laga soo bilaabo waxa weeye 1648 ayaa magaalo Westphalia la yiraahdo Germany ku taala nabad lagu qaatay nabadaasna maxay ahayd annaasu ala diin mulukihim boorkaas ama Protestant ha ahaado ama Catholic ha ahaado isaga dalkiisa u madax bannaan modern concept of citizenship waxay ku timi after the French Revolution ka dhalatay oo Francisco de soo qaybsanaa waa garanaysaan saddex state buu ahaa clergy oo kaniisadii nobility iyo intii kale oo waxba de aan hayn waa kuwii gadooday waa kuwii qabsaday waa kuwii boqorka dilay waa kuwii kaniisadii gacanta mariyay waa kuwii diinta iyo dawladda kala saaray markaas citizenship waxa la yiraahdaa ay dhalato waxa noqotay ana acquired thing oo honorable ninkan waxba haysan maanta uu leeyahay citizen baan ahay iyagii baana dalkii xukuumay aad wixii ka dambeeyay way noogeen wixii ka dhacay marka saddex concept baa jira oo nationality ama ay halkii citizenship ku nationality ku kala laata ta Francisca modelka Jarmalka iyo modelka Mareykanka ta Francisca waynaga ka hadalo waxa weeye inaad mabaadi'da revolutionka
ee diinta iyo dowladda kala saaraysay ee qasbaysay in qofku assimilated noqdo culturally French uu noqdo culturally iyo fikriyan iyo caqliyan iyo maskaxiyan uu French u noqdo mid waa taa midad teenuna waxay u dhowdahay Jarmalka oo isir bay ku saleysantay inaga waxa la ka isiran 1960 Juun iyo wixii ka horeeyay isirku waa maxay hadaynu diirka ka qaadno oo qurxinta ka dayno isirku waxa weeye dawaa abtirsi ku abtirsada dadkii halka digi jiray waxa 1960 wixii ka horeeyay maxaa ka horeeyay isticmaalku waa kii noo yimi 1884 intii muxuu sameeyay reerihii xeebaha deganaa ayuu wakiiladoodii la galay heshiis uu leeyahay waan idin ilaalinaya isirku muxuu ka socdaa waa reerihii la galay heshiiska inta ka isiran marka la qaawiyo ee shaarkii surwaalka laga saaro waxa soo baxaya inay ku salaysan tahay abtirsimadaasna waa maxay waa reerihii ingiriiska heshiiska la galay iyo wixii ka tafiirmay waxa timi markaa koonfur baynu tagnay dawlad Soomaaliyeed baa dhalatay dawladda Soomaaliyeed nidaam adduunka waxa ka jira waxa la yiraahdaa kin state waa dalkii hooyo iyo dad iyada la jinsiyada oo la dhaqana oo la abtirsiima ah oo dawlado kala xukumaan taasay u tahay kin state marka muwaadinimada ama citizenshipku marka muxaddad ma yahayne dadka shanta Soomaaliyeed degan oo dhami haday Soomaaliyeed yimaadaan automatically waxay ahaayeen citizens bay ahaayeen maxay tani kaga duwan tahay waxa maxay ku dhalatay way xeerkan muxuu ku dhashay cadaadis wuxuu ku dhashay dagaal wuxuu ku dhashay iyagoo dadkani u arka 70% of the population of Somaliland oo arka in dagaal isir la galay isirnimadoodii inay u keentay cadaadis iyo cagajugleyn iyo marka reaashku muxuu noqonayaa inaad Soomaalida intii kale ka soo wadato macna halkan ku jira waxa weeye 1960 markaynu koonfur tagnay waa la ballaariyay nin kastoo Soomaaliyeed oo cadaadis lagu hayaa ama NFD ha ahaato ama kaliga shanaad ha ahaato ama ha ahaato Djibouti automatically markuu yimaado xuquuq muwaadin buu lahaa maanta laakiin sidii reaction kaasay keentay waxay keentay marxaladdu ku dhashay xeerkan inaan wacyiga siyaasiga ee shacabka reer Soomaaliland iyo xukuumadooduba gaarsiisanaa inuu moosa aanu iska moosno Soomaalida inta kale waxa kale oo ku jira xuduudka Soomaaliland inta noon moohayn qayb waxa jirta amxaaradu bixisay oo Ingiriisku markuu inoo yimi uu isagu wareejiyay question-ka imanaya waxay qaybta dadkii deganaa iyana maxay noqonayaan haddaan example siiyo Jarmalka oo kale isu dhownahay Jarmalku waxa weeye dalalkii ugu dambeeyay Europe ee nation state samaysta dagaal baana ku timi nation state kaasi haddii taariikhda hadii iskuulada ku dhigateen ninkii loo odhan jiray Otto von Bismarck ayaa isu keenay Jarmalka hal state baa ugu weynaa oo loo odhan jiray Prussia dhowr iyo 30 bay ahaayeen dawladooda yaryar ninkaas ay isu keenay German nationality-gu yani feeling-ka Jarmalnimadu kii u dambeeyay Yurub ka dhashay waa destruction ku keenayna waa ogeydano First World War iyo Second World War iyaga bilaabay labadaba waxaan idinka wadaa marka ninka Jarmalku halku doono ha u haajiro qarniyo hore ha haajiro meel kastuu joogo waa nin Jarmal ah waxaanu jaamacadaha Ruushka ku wada jiray niman loo odhan jiray the Volga Germans webiga weyn ee Volga dusheeda la dejiyay waxa jirtay boqorad Catherine the Great oo Russia xukumi jirtay oo asalkeedu Jarmal ahaa markuu ninkeedu dhintay boqorada noqotay
shacab badan oo jarmal ay keentay inay dalka hore u mariyaan dadkana wax baraan beeraha la siiyey beeray degeen waa 300 sanadood ka hor dadkii imika markuu jarmalkii burburay markuu buray ruushkii automatically waxay heleen citizenship marka iyadu waa by blood baa la dhigtay jarmalku waana isku isirkii dhiigu isku dhow yihiin ninkii turkiga ahaa ee 3 generation ku noolaa Germany ee wax gashaday ee cashuur bixiyay ee hadduu doono dalka difaacay waxa kaga xuquuq roon oo automatically wali jinsiyadda ninka 400 sanadood awoowi ka sii maqnaa Jarmal way jinsiyadii baa wax ku salaysan tahay sangue blood waa dhiig waa dhalasho waxaana ku kalifay duruufta qabsatay uga duwaneen Yurubta kale uga duwanaayeen muqaaranadu waa taa Mareykanka oo kale dee cid meesha lahayd oo loogu yimi ma jirta iyadu waxa weeye daba furan bay ahayd Faransiiska had iyo jeer waxa muhiim ah inuu qofkaas assimilated yahay uu nin Faransiis ama yellow oo Chinese ama nin Faransiis oo madow yahay oo citizen halkaas ay ka timi oo dagaalkii bay ku timi markii laga adkaaday dabaqadii dalka xukumaysay waxa bay isugu yeeri jireen citizen hebel iyo citizen hebel baa loo oran jiray waxa kaloo jirta iyana mabda kaloo ah diin ku bees garaysan oo dawladaha islaamku markay midaysnaayeen al-umma al-islaamiyya ay ahaayeen oo ninka muslimka meel ka soo joogaba uu dawladda uu la joogo iyo halka uu tagay baa ahaa nin ummadda kamid ah iyadiina maanta burburkii ku yimid dawladda islaamka iyo sidii loo qaybsaday maanta waxa jira dalal badan Falastiiniin imika deganaa Suuriya ama Lubnaan 70 sanadood oo jinsiyadda qaadan karin dalka iyagoo dad muslimiin ah oo Carab ah haddana aan jinsiyadda qaadan karin transitionka bulintu leeyahay umma islaamiyya ilaa halka marka inaga waxa weeye salkaynu imika dhiganay imika waynu degnay dhiigii uuskii waa iska tiray in de taqyiir lagu sameeyo wadciga maanta ilaa la socoto ta kale ee haweenkii tabaysaan idinku waan garanayaa horaan uga doodnay qofkii ugu horeeyay ka dacwooday markaana waxa ay Fuusi Yuusuf Xaaji Aadan ayaa ka dacwootay taana xildhibaanadii ka doodayay markaa qodobka daliishadan wuxuu ahaa qodob xagga diinta iyo shariicada ka socda oo diinta islaamka waa ogtihiin ninku uu guursan karaa gabadh aan islaam ahayn diinta waa ogoshay iyadoo markaa aan laga baqanayn ubadkii in diinta laga bedelo ayaa isaga priority la soo leeyahay ninka islaamka ee gabadh kristaana guursada caruurtiisa muslim bay noqonaysaa oo diinta lagu ilaalinayay dumarkana waxa la yiri gabadha islaamka ee nin kristaana guursata ama diin kale guursata teedii baa la isku jirtaa iska daa caruurteeda marka horka analogy-ga la soo qaato halku ka yimi halkaas ay ahayd isirka had iyo jeer aabuhum baana abtirsiimay noqotay innaga maanta beelihii degi jiray weeye macno beelihii degi jiray isirka lagu sheegayaa waa beelihii degi jiray 60kii iyo wixii ka horeeyay oo ku suntanaanayso intii la saxaxatay way jireen dee family iyo qoysas deganaa isagoo qoysnimo ku soo galaya ninkaas qoysnimo ayuu ku soo galaya Hargeysa barigeeda waxa ku aasan culimadii ugu waaweyned ee dalkan wax weyn ka qabatay Hargeysa iyo meel walba ay Soomaaliland bedejisay Sheekh Nuur waa taqaana baan mareynaya kama soo jeedo beelaha Soomaaliland ku abtirsada abtirsiimo markay noqoto halka tanaaqud baa ka imanaya sheekh magaalada la yiraahdo magaca waxa la baxday de sheekha ku aasan ayaa magaca siiyay haddana marka abtirsiimo noqoto hadal baa ka daba imanaya marka dadkaas xaq bay u yeelanayaan iyagu automatically isir
ku soo geli maayaan la waxay ku soo gelayaan dee dadkii deganaynta ee lagu ogaa ubadkooda iyo tafiirtooduba xaq bay u yeelanayaan marka waad arkaysaa tanaaqud baa jira tanaaqudkaasina wuxuu ku yimid waataan idiin sheegay xeerku kuma dhasho environment politically socially sterile xeer walba waxbaa contaminate gareeyeen bimacna alkalima xeerarku inta badan waxay ku yimaadaan reaction from events dhacay yaani dib inoogu dhicin marka macnaheedu wuxuu ahaa war waxbaa ina gaadhay aynu qoqobanno oo edageena yar aynu xaraysano markii dastuurka la sameynayay qodob baa jira odhanaya ninka madaxweynaha isu sharaxaya xaaskiisu ma noqon karto ajnabi bay ahayd fershankii horreeyey ajnabiyaa soo gelaya markaa dee waxaa soo gelaya inanta jigjiga ku dhalatay haddii muwaadinimadii lagu abtirsiimo laga dhigo inanta garowa ku dhalatay inanta kismaayo ku dhalatay ayaa soo gelaysa oo intooduba dee abtirsiimo ku soo geli maayaan isirnimo ku soo geli maayaan muwaadinimadii somalilan maxay taasi kaliftay in darajo loo sii qaado markaa la yidhaahdo xaaskiisa waa inay muslin haata iyadoo laga duwayo gabadhaa soomaaliyeed in ninka soo guursada ina soomaaliyeed oo dee gobol kale u dhalatay lagu takooro la yidhaha xaaskaagu ma aha muwaadin somaliland taa halkaasaanu sare u yarqaadno muslim baanu gaadhsiinay tanna waxaa weeye maanta dee international looga iyo qawaaniintu ee dastuurkeenna gabadha iyo wiilku waa isku xuquuq dastuurka waa isku xuquuq marka qodobkaasina halku salka waya waan idiin sheegay anigu dee waxaasaa khaladay waxaasaa saxamalihi analysku maan idin siinayaa doodaydun ku darsan doontaan halkaasay ka timi wolo shareecada xagga shareecada ka soo gashay ayaa intaa ku soo dartay muwaadinimaduna dee waxaa weeye iminka citizenshipku adduunka waaba dee waa la akwaargareeyaa haddaad tagto toronto chinese badan baa degan chineskaasi way iibsadeen nationalityga maxaana ku iibsanayaan ninkii $150,000 lacag ku siman gashada dalkaas maal gashada automatically wuxuu noqonayaa waddankaas ku noqonaya nimankii ruushka soo boobay oligarchska la yidhaha mid waliba wuxuu haystaa ama qobrus buu ka iibsadaa ama greeg buu ka iibsadaa ama dowladaha yaryar ee ayuu ka iibsadaa citizenship si marka halkaas ugu kululaato automatically ula soo baxo tiisii kale ama Israel baa ka wada iibsadaan intooda badan ee yuhuud ka soo jeeda marka bahashi wax xidhan oo maaha dee siilida oo inta stamp la saaray la xidhay maaha inana waynu bedeli karaa dee waxaan idin rajaynayaa dood wanaagsan baan idin rajaynayaa لكن حال ما قرأ يمين قال لي بيرسل توتل في قرأ يمين أجنبي وحكوشرا إن كان تشتغل كل شيء كأجلو وش نبدو وكشرا يعني هكذا سوبا هي إن قيحيد إن هكذا بدل ما صبايا حال كمان كذا سبيله سيدا إن كان مفهومه هدول يبلو عدايق قبل يصير مسلم لقط أنت سا وين كنت تعلم طايح Soomaaliyeed aanay nin ajnabi guursan ama sidoo ku turjumeen gaala ah ay ka timid markii hore dagaalkii sababana ka dhacay xabashida iyo Soomaalida ka dhacay si aanay gabadha Soomaaliyeed xadka ugu gudbin ama qof ajnabi oo muslim ama ha ahaada ama cid kale ha ahaadeen u guursan odayaal dhaqameedka Soomaalida ay u samaysay xeerka xilliga wala soo gudbay hadda waxaan taaganay 2017 oo ah in gabadhii horumar yeelato mar haday meelo badan ka jirto dalkii in deetaan xaq loo siiyo qofka ajaanibkiina ma aha kaliya inuu gaal ahaado ee waxa weeye qof muslim ah si aan ahayn citizenka iyadu tahay aan ahayn xaqna looma laha san fahmaya anu aan u garanaya in gabadhida ay la yiraahdo ubadkeedii iska da iyada ubadkeedba stateless noqonaya oo dal lahayn taasina ay ujeedo tahay ah inaanay marka horeba gabadhu xaq u lahayn inay guursato iyadoo ilaahay qof walba xaq soo siiyo markuu dhashay xor baa tahay qofkuna hadduu muslim yahay
loo sameeyay marka horeba qabaa'ilka ama cidda loo la isugu dhaweynaya ay tahay in la isku fahmo la isku barto ay si qof walba waxa ku leeyahay cidii dooranayo guursanayo ikhtiyaar u leeyahay hadda ka hor kaarkii waxa la qaadanayay wadan ee qofku ku ahaa citizenshipka hablo badan baa loo diiday oo la yidhi waalidka ku yeedha hadhow toban kaarka waxaad ula tegaysaa nin ajaanib ah waa mid logic ka baxsan marka xaggaaga sidaad u aragtaa ma tahay waxaan bedeli karna maanta mise waxa weeye wax sugaya in haddana dib loola hadlo odayaal dhaqameedka aanan islahayn xilligaa way shaqeeyeen hadda aan shaqayn karahayn dooda quruxda badan iyo madaxda iyo dhammaan aqoon-yahanada ka soo qayb galay waxaan doonayaa inaan weydiiyo guddoomiyaha su-aal ah xeerkan wuxuu aad iyo aad ugu sii daadego aad usii sharaxay in gabadha tusaale ahaan nin inanka reer somaliland uu aqoonsan yahay inuu yahay muwaadin haddii uu soo guursado gabadh aan muwaadin ahayn tusaale ahaan kale soomaalida kale kasoo guursado waxay si automatic u helaysaa citizenshipka ama muwaadinimadii halkaas weliba wuxuu sii hoos usii daadegay haddii uu furo ama uu ka dhinto weli waxay ahaanaysaa qof citizen halka gabadha inantii somaliland dhalatay ee hargeysa tusaalahaan ku dhalatay ama burcaama borama ku dhalatay haddii ay guursato nin soomaalida loo dhashay ay waayeyso amaba ninkii somaliland ee qabay haddii uu xamar wasiir ka noqdo ay waayeyso oo mar kasta iyadoo ay ku xidhan tahay qof kaloo bini-aadam halka sharcigu uu xaq dheeraada siiyey inantii la soo guursaday marka halkaasoo kale ma horamay ugu muuqatay dhadhan noocmaa bay samaynaysaa artikalkii sideedaad ee equality of the citizenkii ma yeelaysaa balinaha wax looga yara taataaba wanaagsan CCBRS marka xildhibaanka su-aal baa laakiin waxaan doonayna waa comments ama tala soo jeedin maadaama uu sharcigu leeyahay gabadha muwaadinka reer somaliland dhalatay nin ajnabiya haddii ay la timaado wadanka ma helaysa oo sharci ma helayso citizenship rightskeedii waxaan qodobka haddii wax laga bedelo oo si kala qaado waxay noqon soo qodob xuquuqida ay noqonaysa matalan ajnabi laba kala qaadin si gaara loogu magacaabo xagga diimahana xildhibaanku waxay noo sheegay in ku salaysan tahay oo xagga shareecada islaamka markii knowledge loo eegayay qodobka marka ka yimid markaa taxaan waxaan soo jeedinahaa in qodobka meesha total laga saaro marka amendmentka uu sameynayo constitutionkeena waayo waxaa jira wadamo fara badan oo dibadaha maxday jeer ama kristana ama muslimada lashadooda si fudud aynu ugu sameynahay ragga dumar baynu qaadan marka taas soo jeedina aabad maasan laakiin waxaan doonayaa inaan guddoomiyaha dhacdo maadaama oo xeerkan uu dumarkii reer somaliland caqabada ku yahay aananu soo eegay runtii aanu munaaqashaynin wixii aan dhanba waxaan u baahanahay inaanu ka hadlayno cagsigan ama qodobkan marka waxaan u baahanahay runtii waan bilaabi hadalkeeda hablaha somaliland caqabada ku yahay dumarka somaliland caqabada ku yahay marka maadaama oo berigii xaalada ku jiray oo aad markii ugu horeysa ka cododhaad oo xaaladu kolka ay isbedelayaan laga yaaba inaanay jirin dumar berigaas sida uga fahansan adseyntainka dumarkii ay u jeesteen inay xuquuqdoodii ay raadsadaan aanan ugu aadan marka mushkilad badan dhalay inuu aanan agtiga kabadh aan jirin maxaa aad recommendation ama kala soo jeedina oo aad maadaama aad khibrad u leedahay intaasoo sanadooda welihii soo horfadhiday adseyntain golaha masaxeexaya sharciga cagsiga masaxeexayana aad ku saxeexday maxaad is leedahay wuu ka caawin karaa marka loo eego experience-kaaga iyo khibradaada halkeebaad filaysaa ama aad is leedahay way ku fududaanaysaa ee hawsha ka bilaabo haddii la helayo insha allah صدق وإذا مروا يكون صوصي صح ونعني ودينا أول بحصوي حتى طولي وعلى يمين السكي اللي قد يروحون من أول كذا من السكي مكان على الدولي وحوي ورام على ذوق اللي يسوي النزول هذا اللي يسوي النزول بين هذا مرك تفسير اللي قال بعضها كانت وما ضريك يعني هذا
rumay ka jawaabaysa wax soo socda ama wax dhacay ama wax taagan markaa oo ummaddu ku yar wareertay ayaa loo iftiiminaya qawaaniinta marka la sameynaya waxay leeyihiin intaa marka loo abtirinayo maxaa loola jeeda original intentkii muxuu ahaa maxaa keenay marka xeerka la fasiraayo qodobadaasaa lagu fasiraa waxaa laga duulaa markii la sameynayey intentionku muxuu ahaa intentionkana waxa xukunta markaa xaaladda markaa taagan qawaaniinta marka la sameynaya inta badan qawaaniintu inta badan proactive maaha inta badan waa reactive qalab dhacay ama khilaaf yimi ama wax socon waayey oo khibraddii laga faa'iidsanaya ayaa laga daba tagaa xeerkani siduu kulmaaniga idiin sheegay wuxuu ku yimi dad cadaadiyey dad la burburiyey oo ummaddii ay ula tegeen gobonnimadooda ninkastaanu sida dee shuqul ku lahayn haddana dee nidaamkii markaa jiray uu takooray oo isarnacayb loo muujiyey waa dadkii hormoodka ka ahaa midnimada soomaaliyeed ee tadxiyadii u horreeyey ku bixiyey iyo gobonnimadoodii ay 80 sannadood dagaalamayeen intay ula tagaan idhahdaan war waa taasay wada markaa action baa imanaya markaas oo kale war maxaan ku dhimanay waxaan ku dhimanay muxuu ahaa soomaali sukeeninteeda soomaali sukeeninteeda soomaali walaalinteeda maxaan kala kulanay nacayb kala kulanay markaa maxaa imanaya inaga muusa waa active waxay nagu dhacayaan ama dambe nagu dhicinay bal inteena iyo horta inoo muusa oo maxaan ku muusanaa Israel ku muusan Israel ku dawada ku haya odayaasha heshiiska la galay qabaa'ilkii la heshiis gargaaraya xafiiska DC-ga la dhigay qoqaashooda mushaarada ka qaadaysa caaqilkaagu waa kuma nimanka siimaanadu markay dhoofayaan caaqilkaaga soo qayba loo jeedo si loo siiyo waraaqihii iyo baasaboorkii caaqilkaaga ninkaan caaqil meesha ku lahayn aan qabiilkiisa laga aqoonsanaan ingiriisku aqoonsan siyaabo kale ama nin taajira ama nin magacyo maamuus dalka kule ayaa odhan jiray aniga ka mas-uula marka horta sidaas uu ku yimid dee marxaladdii imika waynu ka guuray khatarta weyn ba imika soomaalida u aragno khatarta weyn ee nagu soo socotaba imika soomaali uma aragno cid kale aynu aragno magaceeda sheegi maayo oo imikaba dadku ka qayliyaan oo la waa la qarqinaya oo dalka waa la wareegi doonaa beri dhow ummadda laga badan oo bad u baahan oo dad badan oo baahan oo dee waad ogtihiin oo waxay iyo dee waxa ka dhacay markaa dhulkii ay darsi ku ahayd markaa khatarta u weyn imika ma ahaba inanta garowa ku dhalatay iyo inanta kismaayo ku dhalatay khatartii way ka guurto way dhaaftay conceptka ah inaan Soomaaliyeed guursata oo aan ahayn beelihii ka jiraan Somaliland in loo dhaqmo sidii inaan nin Kiristana guursatana dee waa khalad waana la saxi karaa sida taa madaxweynaha loo saxay markaynu hortimi اللي حاسكي سوينا أنا شريبة أنا شريبة أنا قنية وحلي أنا حدود كسومالات كبحث رودا هي حدود قنية وحلي أنا حدود كسومالات كبحث رودا ما قنية تاسنا لو عادي أدخل يا الله يد مركي بوا تعالوا بدلي إسلام ينتنا أضعف الإيمان سيدا سألوا بدلي كرام sidaas ayaa loo bedeli karaa horta bal markuu darajada la soo gaarsiiyo inankii Soomaaliyeed inantaasi ay ilaahay isu keenay iyo ubadka kala siiyay in kategorigeeda laga saaro ma qaadan karto jinsiyadda Soomaaliland ninkeeda ma siin karto ubadkeedana ma siin karto in laga gudbo sida imika taa waa sidaa weeye oo darajada badalad iimaan la yiraahdo islaam iyadoo imika dee adduunka isbedelo dadka dhex galo aan meel walba tagnay
ووح رقم بالله سوق يد تطور باص هذا ستاتيك معها حتى سوشيال نورمز ستاتيك معها ومتاجنا ويسبدل يعني ظروفها بدلها urbanization بعد عيا dadku isku dhexgalaya ganacsi baa imanaya movement baa imanaya social mobility baa imanaysa marka waxa weeye si ay xal u soo kara initiative inuu xagga ka yimaado initiative inuu xagga ka yimaado oo waxa weeye civil society waxay leeyihiin awood bay leeyihiin arrintaa in adeegsataan civil society organizations kale ama xuquuqda dumarka u dooda ama xuquuqda dadkan la cadaadiyo u dooda meel bay ka wada socdaan labaduba markaa in horta critical mass xeerkuna isma bedelo ilaa dadka kasoo horjeeda ay noqdaan critical mass yeeshaan chemistry qofka yaqaana chemical change kuma dhaco ilaa waxa la yidhaha critical mass la helo labada maaddo la isku daraya ay gaaraan ilaa heer marka waxa weeye critical mass la kaalaya oo ma aha tiro umna dood iyo hadal iyo muuqaal iyo nin walo kala qabsataan oo nimanka maanta musharaxiinta mid walba halkiisa ugu tagtaan oo tiraaqada ka baxda qabanaysa inta aanay ka fokan imika boo ku halkan ku shiray u dira maxamed kaahin baa joogay ka dhaxda waa tirada maxaa ka qabanaysa qodobka annaga Britain oo kale beelaa markan mid soo dhaweeyay marka waxa weeye وخلط دعي ظروف تكون من الوطا سيدي تامر مدحوينها بدقدقه go'aan ka lagu gaaray leeyahay ajnabi yaanay noqon ha noqoto yaanay noqon ha noqoto qof muslim ha noqoto shareecadana waa kala jaar in qofka diinta lagu ilaaliyo iyo in xuquuqdiisa muwaadinimo labadu waa kala jaar midna ilaahay baa ku leh إلهي هي أقول من دولة داخله مركب إلهي لو داي يريد أمضي كل هذه الأمة لو داي وأنا شريعة دي يوب بسلح دقين أرنتن دي ضد صومالية دو سكوميدا وسكو أفا أنا لو أدرك الشريعة دي انفصال أي ساوك ولا شفتوا ساوك ولا مركاي ضلال بدو أمك تشرمك مساء صلوا غيريا وروح سوي شرينا وأنا كل جيني ويكون جيني وتشرمك وقتينه وقتينه تضبطنا دي لما تقول دي تركي جيب الكرتين شرمك وحوي تذكركم في الله وضد أنت سمعت هي شغالة ومعين أي العامل ومعين marka waa ku charmarka gurtay Turkiga gurtay dalkaas waxa laga yaabaa in 7 sanadood maanta joogaan hadana ubadkoodii ma aha walistiisan ma dadkii 400 sanadood ka hor ay Catherine the Great ka xasay ruushka geyseen ardaydii jaamacadda ugu jirtay markuu ruushku burburay automatically intaas ku isirkaas ku iyo dhalashada iyo dhiigaas marka meel walba ka jirta taas oo kale laakiin inaga waxa weeyaan bal waxa sharciyada qabtana sharciyada loo daayo qawaaniinta madaniga ee qaadmana sharciyada ka hor iman mayso inanka Soomaaliyeed guursada sharciyada ka hor iman mayso oo sharciyada waxa la yiraahdo qiimaysa ma jirto caruurtiina waxay ahaanayaan mid caruur islaama iyadina waa muslimiintu bay ahaanaysaa labada kategori la kala qaado balka islaamka meel baa loo yaalo ilaa inta كيف بدنا هم هاس إن ثالثي بيان وقبا لكن إني حقنا كتير هذا وكريتيكال مسيلتان ودواغين وديرادو وإذا هو صهدل ويكون كذا سؤال أدخل الميلر قارن وما تنتين تراعي دونا إلى ملتيadaasi baarlamaanka waxaan jecelnahay in la soo akhriyo oo lagu daro hadhowto analysis-ka ka hor intaan tallaabo la qaadin si loo ogaan karo oo qoraal looga sameeyo marka hore waxyaabihii kalifay in muxuu haayay xeerkani la qoro taas markaa waxay naga saacidi doontaa qaabka loo bedeli karo iyo muxuu haayay iyo cidii samaysay naga la tashan doono
gudoomiye aad baad u mahadsantahay waqtigaadna siisay insha Allah waqtiga kalena waan kulmi doonaa arrintan ku saabsan mahadsan waxaan gudagalayaa markaa anigu inaan analysis-kan aan ku sameynay muxuu ahaayay xeerka sinjiyada Soomaaliland inaan muxuu ahaayay presentation yar aan idinka siiyo markaas muxuu ahaayay kulli war wada haysataano qoloyin badan aad u fahamsan tihiin laakiin si yar baan u guud maraya si xeerka u fahanna waxa uu ka hadlayo taas waxay dhigto inoo fududeyn doonta inay muxuu ahaayay talaabooyin ay ka qaadanayna inay noqdaan qaar wax ku ool ah iyo halka ay ka bilaabeen insha Allah halkan waxay hortaala waraaq ay ku qoran tahay falanqayn sharci oo lagu sameeyay xeerkan sinjiyada marka su'aal baa isweydiin leh waa maxay horta sababta nagu kaliftay marka hore xeerkan lagu sameeyo falanqaynta maxaa keenay arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in marka hore la ogaado muxuu ahaay waa qofka muwaadinka ah ee Soomaaliland inta la isla ogaado sidoo kalena waxa weeyaan in la ogaado iyadana yaan Somalilander ahayn marka la ogaado xeerkan marka xeerkan wuxuu kala sheegayaa cid Somaliland ah iyo cid aan Somaliland ahayn talabaad iyadana ujeedada aan ka leenahay waxa weeyaan iyadana in bulshada Soomaaliland aan u iftiimino xeerkan cid uu yaqaan inay tahay Somaliland iyo muxuu ahaay cid kale aan u aqoonin muxuu ahaay Somaliland gaar ahaan dadka sharci yaqaanada ahayn way qof walba wuxuu aaminsan in Soomaaliland yahay laakiin marka sharci la ansixiyo waxa kugu iman kara waxyaabo aad u aaminsan wax ka duwan hadaba ay muwaadin marka laga hadlayo ee xeerkan ka hadlayo wuxuu leeyahay qofka muwaadinkii laba siyaabood ayuu qofka muwaadin ku noqdaa talabaad waxa weeyaan qofku inuu noqdo qof muxuu ahaayay Somaliland dhalasho ahaan muxuu ahaayay Somalilander ku noqonaya iyo qof sidoo kale ku noqonaya waxa loo yaqaan true naturalization ku noqonaya hadaba marka laga hadlayo Somaliland citizen xeerka muxuu ahaayay dastuurka jamhuuriyadda Somaliland waxa uu toos u qeexayaa waayo qofka loo yaqaan Somaliland citizen ma muwaadin waxa uu leeyahay qof wal oo 1960kii wixii ka horeeyay Somaliland deganaa ayaaba waxa loo yaqaan qof Somalilander waa marka xeerka si toos muxuu ahaay qodobka dastuurka loo eego hasaatee sidoo maqlayseen gudoomiyuhu arinta wuxuu inoo sheegay wuxuu si sharxaya isaga laftirkiisu wuxuu inoo si sharxay wixii looga jeeday qofkii Somaliland ka horeeyay laakiin waxa kan wuxuu sidoo kale inoo sheegay inuu yahay qofkaas uu noqon karo uu ku yimid qaab muxuu ahaay colaabeed iyo waxyaabo noocaas ay ku keeneen hadaba markuu ka dastuurku sheegay qof wal oo Somaliland kamid ah oo 1960kii dhashay inuu yahay Somalilander oo aanu kala saareen rag iyo dumarba xeerkan Somaliland Citizenship Act-ku si ka duwan buu arinta u qeexay waxaanu leeyahay qof Somaliland Citizenship-ku waxa weeyaan waa qof walba oo uu aabihi ka soo jeeday 1960kii taas waxay ka hor imanaysaa dastuurkeeni sheegayay oo aan rag iyo dumar kala saarin laakiin xeerkan waxa toos loo kala saaray oo muxuu ahaay meeshii laga reebay dumarkii waxaana la sheegay kaliyaata inay yihiin muxuu ahaayay qofkii ka soo jeeday aaba kaliyaata hadaba marka arinta laga hadlayo leeyahay qofkii ka soo horjeeday 1960kii wadanka deganeed waxay noqon kartaa Somaliland laakiin hal shay baa muxuu ahaayay uu kaga soo horjeedaa xeerka citizenship act-ka la approve garay uu kaga soo jeedaa dastuurkii oo si gaar ah waxa uu kala saaray dumarkii buu meesha ka reebay hadaba marka laga hadlayo true naturalization waxa loo yaqaan kaas waa dhalashadii laakiin waxa loo yaqaan naturalization macnaheedu waxa weeyaan qof aan Somalilander ahayn oo Somaliland u dhalan ayaaba wuxuu noqonayaa Somalilander qofkaas wuxuu ku noqonayaa wuxuu xeerku leeyahay waa qodobkiisa afraad ba ka hadlaya waa qofka muxuu ahaay qaxoontiga ee wadanka soo galay qofkaas marka waxa la leeyahay hadii uu 10 sano deganaado isagu wuxuu noqonayaa qof Somalilander uu noqonayaa oo wuxuu ku helayaa qaabkan ah diiwaangelin buu ku helayaa waxa loo eegayaa kaliyaata inuu 10 sano wadanka deganaa hadii aanu wadanka dambiye ka gelin hadii aanu qarannimada ka soo horjeedin qofkaasna wuxuu noqon karaa isaguna waa qaybta labaad lagu noqon karo Somalilanderka qodobkan markaas sidoo kale wuxuu awood u siinayaa qof wal oo aan qoomiyad ahaan Soomaaliba xataa ka soo horjeedin marka laga tago Somalilanderiska wuxuu u siinayaa chance buu u siinayaa inuu noqdo Somalilander hadduu maanta Chinese ama Hindi wuxuu doona ahaado 10 sano hadduu degan yahay oo muxuu ahay buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay ee ah inuu muxuu ahaay wadankaanu dambi ka gelin wadanka daacad u yahay qofkaasna sidoo kale wuxuu chance u helayaa inuu noqdo qof Somalilander hadaba xeerkan markii aan eegay laba dhinac baan ka eegay labada dhinac waxa weeyaan
oo xeerkuna toos u kala saarayo oo moodana in muhiimaduna ku qotonto waxa weeyaan qofka ka soo jeeda gabadh Somalilandra iyo qof ka soo horjeeda nin Somaliland waayo xeerku wuxuu si toos ah u sheegay uu leeyahay marka laga hadlayo xeerkan baas gareeyay Somaliland waxa uu ah qofkii nin amaba muxuu ahay aabihi ka soo jeeday Somaliland marka laga hadlayo arintan kaliya xeerkan wuxuu priority-ga siinayaa qofka ka soo jeeda aabe rag ah ka soo jeeda kaas oo ku heli kara hadii tahay dhalashahan hadii tahay hadii kalaba xeerku kan wuxuu leeyahay qofka aabihi ka soo jeedo 1960 ayaa wuxuu noqon doonaa wuxuu yahay qof Somaliland citizen sidoo kale xeerku wuxuu sidoo kale tixgelin gaar ah siinayaa marka laga hadlayo dadka wadanka soo galay ama qofkii qaxoontiga ah isagana wuxuu si toos ah muhiimad u siinayaa qofka ka soo jeeda aabaha labada jeer baadii Somaliland yahay iyo hadduu qof soo galay labadaba wuxuu siinayaa muxuu awood u siinayaa ama priority-ga ragga haddaba qodobkan uu leeyahay waa inuu aabba ka soo jeedo Somaliland oo xeerkan lagu ansixiyay maxay tahay macnaheedu qodobkan wuxuu si toos ah uga soo horjeeda dastuurkeena Jamhuuriyadda Somaliland toos uga soo horjeeda waayo dastuurku ma kala saarayo rag iyo dumar waxaanu xaq siinay ayuu leeyahay qof wala ka soo jeeday Somaliland 1960 wixii ka horeeyay waxa weeyaan Somaliland taa macnaheedu waxa weeyaan dastuurku si toos ah ayuu xaq dumarka u siinaya halka xeerkan la ansixiyay ee citizenship looga lagaga reebay xaqii dumarku lahaayeen iyadoo meesha laga saaray qofkii gabadh Somaliland ka soo jeeda totally aan ahayn qof Somaliland taas waxa weey marka laga hadlayo gabadha Somaliland sidoo kale xeerkani marka uu leeyahay qofkii Somaliland soo gala waa inuu 10 sano deganaado waxa uu helayaa muxuu ahaayay Somalilandnimada taa laftirkeeda rag un baa laga hadlayaa gabadh lagama hadlayo macnaheedu waxa weeyaan gabadh aan Somaliland hayno 10 sano wadanka deganeed marka shuruuduhu bixisay Somaliland la siiyo iyadana lama damaanad qaadayo hadhowta cidii ka soo horjeeday Somaliland iyadana ma noqonayso marka labada jeer ba halka dumarku waxay yihiin kuwa ku dulman weeyaan su'aal baa isweydiin lahaa hadaba gabadhii haday 10 sano degan tahay waa maxay sababta loogu diidi waayay iyadana loogu diiday citizenshipka in la siiyo iyadii cidii ka soo jeedaba su'aalaha isweydiinta la soo kale waxa weeyaan waa maxay sababta looga doorbidayo ninkii soo galay wadanka gabadhii maxaa isaga iyadana looga doorbiday taas ayadana su'aal isweydiin leh inta markaan kaga baxno qeexidii oo sheegaysa yaa Somaliland noqon kara iyo aan noqon karin qaabkee lagu helayaa waxa jirta hadaba qayb kamid ah xeerka oo sheegaysa qaabkeeba lagu waagi karaa Somaliland citizenshipka xeerkan jinsiyadda marka uu ka hadlay qaabka lagu waagi karo intii baneed baa kale soo sheegtay marka wad ka wada hadlayseen waxa uu leeyahay gabadha Somaliland-ka waxay luminaysaa iyaduna jinsiyadeeda hadii ay guursato iyaduna qof muxuu ahaayay ajaanib hadii ay guursato waxay waayaysaa jinsiyadeeda laakiin sidoo kale hadii ay aqbashada way waayaysaa marka arintaas macnaheedu waxa weeyaan meesha kuma qeexna foreign male marka laga hadlayo ama nin ajnabi marka laga hadlayo kuma qeexna nin ajnabi oo keeba tahay kuma qeexna laakiin wadi kan arkayo xildhibaanku wuxuu noo sheegay intention-kii ka dambeeyay markii la ansixinay inay ahayd ay ka duwanay ay qaarkood ku saleeyeen xataa diintiiba ay kaga hadleen oo wax macquul ah arintaas aan ahayn marka arintaas waxa baahantay foreign male marka laga hadlayo xeerkan waxaan u qaadanaa macnaheedu waxa weeyaan qof wala Somaliland xadkeeda ka baxsanba Soomaali kala ahaado Muslim kala ahaado wax weeyaan qof ajnabi ah marka waxa la leeyahay waayaysaa hadii ay guursato midka qaab kale ku waayaysaa waliba gabadha Somaliland-ki waxa la leeyahay ninkii Somaliland-ka isaguna hadii uu citizenshipkii Somaliland uu raahdo ma rabo oo iskaga tago oo wadan kala tago iyaduna si toos ah automatically waxay waayaysaa Somaliland citizenshipkeedii lagama weydiinay xataa ma sii ahaanaysa ma sii ahaanaysid isagoo go'aankiisu ma ku xiran tahay Soomaaliland uu tagayo xadku ka baxayba Somaliland ma rabo gabadhii carruurtii reerkiina iyaguna way waayayaan taasina waa qaabka labaad ee xeerku sheegayo in muxuu haayay ay ku waayayso gabadhu citizenshipkeedii haddaba qodobkan marka laga hadlayo gabadhii statuskeediiba waxa lagu xidhay ninkii baa lagu xidhay hadduu Somaliland doonayana Somaliland bay noqonaysaa hadduu Somaliland diidana Somaliland ma noqonayso halka iyada wax consent oo laga weydiinaya ma jirto taasina waxay ka soo horjeedaa muxuu ahaayay dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland ka soo horjeedaa ay sheegayeen in dadku equality yihiin yada xuquuqul insaanka iyo qof walba uu soo freedom of muxuu ahaayay life iyo expression iyo wax walba lahaa halka markay joogno waxa jira dad
dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa sidoo kale fundamental rights and freedomska ayaaba lala turjumaa waxaanu aaminsan yahay qodobkiisa saddexaad wuxuu aaminsan yahay in muxuu haye international conventions on human rights iyo international lawska ay dastuurkeenu aaminsan yahay xeerka marka la soo qaado waxaan loo yaqaano CEDAW ama Violence Against Women ee international lawgan ka hadla arrimaha haweenka waxa aad looga hadla arrintan gabadha marka la leeyahay ninkeeda isla bedbedelaysa ama gabadhii uu muxuu haye ninkeedii ay kala tagaanba gabadhii toos waxay ugu soo noqonaysaa stateless bay ugu soo noqonaysaa xeerkan markaad eegto inan yar oo dhalata waxa weeyaan stateless bay tahay ilaa iyo inta ama ay muxuu haye ka guursanayso nin Somalilander ah waxay noqonaysaa status bay noqonaysaa hadday kala tagaana dib waxay ugu soo noqonaysaa status laba ugu soo noqonaysaa waa mahadsantihiin inaad igu soo caasimteen shirkan anigu very passionate baan ka hay markay dumarka noqoto siduu gudoomiyuhu sheegayna meelo badan oo ka doodaya buu isna joogay horta marka ugu horeysa intaynan wax kaleba eegin horta maxaa tahay qofka reer Somaliland jooga majority-ga inta badan waxaan nahay dad muslina first before Somaliland before rare before everything dad muslimin nahay dad muslina haddaan nahay haddii jeeraalana waxaa lagu celceliyaa constitutionka wixii aan ka soo horjeedin diinteena islaamka waynu qaadanaynaa baa leedahay anu xeerkan waxaan u arkaa inuu liddi ku yahay xuquuq ay diintu siisay dumarka 2400 in ka badan oo sanadood ka hor markii gaaladu juhalaaga ahaayeen xuquuq ay dumarka siisay ayagu horta xeerkan ka soo horjeeda dumarka gaalada ah ama diinta islaamka aan haysan iyaga la lahaa xoolahooda la lahaa mar aan markay guursatay waxa ilaaliyo waxay u taagneed oo dhanbe luus garan jirtay diinta islaamku dumarka muslimka way xoreysay waxay siisay xuquuq ilaa maantadan aynu taaganahay gabadha European-ka markay nin guursato magacii reerkooda way ka tagtaa magaca ninkii qaadataa waxay micnaheedu tahay wixii ay u taagneed iyo jinsiyadeedii iyo lineage-keedii ay ka timid oo dhan halkaas ku luus garaysaa xeerkanna wuxuu u eg yahay wax aynkaa u eg waayo wuxuu ku leeyahay mar allaaliyo markaad nin muslina oo ashahaadanaya laakiin reer Somaliland aan dhalan haddayna Somaliland gursato waxaad ahayd oo dhawaad luus garaysa ya Soomaali hadduu yahay dad waxa jira dad aan maanta maxaa la yiraahdaa reer Somaliland ahayn oo aynu dhiig wadaagno oo ay abtiyaalino ah oo ilma abtiyaalino ku leenahay waxa soo dhow waxa lagu leeyahay dad gursato you lose your nationality as a citizen as Somaliland oo dhaatay yani xeerkan waa tii shuuciyada marka la eego waxa la yiraahdo wuxuu ka yimid 1977 shuuciyaduna diin iyo islaam iyo ilaahtoona ma aaminsaneen taasay ka timid horta in ay Somaliland iyo parliamentary-kood ilaa maanta ku dhaqmaana waa ayaan daro weyn weeyaan gudoomiyuhu wuxuu inagu yidhi civil society-ga u taga annagu civil society maanaan dooran waxaan dooranay baarlamaan waxaan dooranay guurti madaxweynaan dooranay iyaga mas'uul naga ah iyaga xuquuqdeeda inay u hadlaan oo xeerarka xadgudubka sameynaya in ay ka hor istaagaan mas'uuliyadda iyaga saaranta civil society ma saarna marka horta inay yiraahdaan idinku civil society-ga u taga waa qalad ciddii doonaysa inay xeerkan u dagaalantayna iska ilo human rights iska ilo waxyaabaha kale xuquuqdii ugu weyneed ee Ilaahayna siiyay ya ayaaba ka soo horjeedaanba diinta islaamku xuquuqda dumarka siisay waxa kamid ah inay maalkeeda magaceeda dhiigeeda midna aan ninka guursada toona lahayn ay siisay islaam wax taa ka weyn ma jirto time ku dagaalano horta talabaad baan sheegaynaa markay noqoto mas'uuliyiinta aynu dooranayno waxa weyn inaan aad uga fakarno dumarku awood badan bay leeyihiin bal adigoo biduun baa yiraahdaa waxa jira qolooyin carab oo xuduudaha dhexdooda Kuwait iyo Iraq iyo ku dhashay meel oo u diideen nationality dadkay la deganaayeen waxa loo bixiyay biduun inagu maanta halkaan taaganay biduun beena
حلالي وحن هاي ما شفت الدمر كسر سوماليلاند أما دربانو قال حسبي أما مداد المادرتهن تاجر ريالتي وحويان you are بدون شريتان كاجو إنه كحدنا ظنين معها إلهي باكو أبوري حقوق قالوا كسية واحد لا هاي هو هاي responsibilities حقوق بالقولة حقوق بدك كل هاي دولة كل هاي dadka sharciyada dejiyo ku leedahay inaan waxa soo dhananta indhaha la iska tiro maanta la yiraahdo inanta reer Soomaaliland waxa ka xuquuq badan gabadh shalay toole ajnabi ahayd oo member ka noqotay Soomaaliland ay ka xuquuq badan in jinsiyadaadu ama nationality-gaagu ku xidhnaado inuu ninku Soomaali weyn ku dhawaaqay in kale horta dawaayaan daraweyn marka horta shaqo badan baa inoo taala laakiin meeshan ka abaarina wax weeyaan maanta fartaada ala iska leh doorasho ha tagina dadka waxaas inagu la dhaqmaya inaan doorano waajib ma aha horta iyagii baaba diin inay islaam yihiin khalkhal ku jiraaba kooda xeerarkan ku dhaqmayaan inay iyagu muslim yihiin baaba ay ku jiraan khalkhal ku jiraan haddii ay muslimnimada ay ku dhaqmayaan waa inay dib uga noqdaan xeerkan waa xeerkani islaamku ka soo horjeeda anu taas aan qabaa islaamku xuquuq dumar kaliya ma siin xitaa xayawaanka ayuu xuquuqdiisa waxaan xasuustaa markii ugu horeysay Labour-ka uu qaadanayay 97 was the first time in my life aan ka qayb galo doorasho dimuqraadiyada waa markii halkan joognay waxaan haystay cadaadis oo dinamayna arag dimuqraadiyada dadku badankoodu Labour-ka waxay ugu doorteen ay ku doorteen marka la iska dhaafo xagga dhaqaalaha waxay ahayd xuquuq la siinayay dacwada waxa jira game la yiraahdo fox hunting oo dadka tujaartii intay farda koraan ayna eryadaan deedna ay dacwo eryadaan oo dacwadaasi maanta oo dhan la godwaba laga saaro oo deedna ay intay aydu qaado kala gooyaan deedna markaas ay dib intuu soo noqdaan keeg iyo shaah cabaan ummadii way dhaqaaqdo waxay tiri waxa wala inagu gubaya xayawaan aanay u cunay aanay day wax baahi aanay jirin oo aanay cunaynin oo yani soo ugaarsaneyn oo loo dilayo sport waxa weeyaan maxaa la yiraahdaa wax xaq darro weeyaan xalaali wixii dhalinyaro jirtay ee jaamacada ku jirtay iyo ummadii wixii muslim ahaa iyagu laftigooda xuquuqdii islaamku siiyay xayawaanka ka dhidiyay oo dhan baa u fooday Labour-na saas ku helay marka walaalay waxa maanta ka hadlaynaa waa xuquuqdii dumarka xuquuqdii hooyada xuquuqdii walaasha tii xaaskaaga tii aad dhashay baa laga hadlayaa dumarku alien maaha kama soo dhicin cirka adigu halkan ma joogteen la'aanteed mid walba hooyo soo qaaday 9 bilood inay intay fadhiistaan kulligood shiraan oo waliba notes ka qaadaan inanta reer Soomaaliland ma siina jinsiyad mise ma siino waa ayaan daro weyn inay waxa la yimaadeen waxa cid allaali iyo cid uu meel allaali iyo meel ku saxsan yahay ma jirto si diinta islaamku marka waxay sheegaysaa inaan wala muslina in markii guursanayso ay guursato nin saalixa salaadiisa tukada fiican muslimnimadiisa ku dhaqma inama oranin cadaan ha ahaado mayna oranin madow ha ahaado kuma oranin muxuu ahaa reer hebel ha ahaado categorigaas kuma jiro muxuu ahaa caruuro badan baynu dhalnay oo ajnabi ah ajnabi marka la leeyahay please nin caado maskaxdaada ha picture gareynin ajnabi waxa kamid ah kalka shanaad dadka degaa waxa kamid ah Soomaaliya oo dadka degaa kamid ah Puntland tanjaarkeena kamid ah marka dadkaas oo dhan wax allaale wixii aan reer Soomaaliland ahayn oo dhan ba ajnabi ah marka uma arko wax xaq ah inuu yahay haddaan aniga ku hadlayo magaca Higsi Hogaan oo ah campaign ay ku mudoobeen haweenka Soomaaliland si xuquuqdooda meel kasta ay ku jirtoba ay u raadiyaan waxaan leenahay waan ka garab taaganahay dagaalkuna waa dagaal inoo wada yaala muxuu ahaa madaxduna please marka aan shir danba qabanayno xagga u dambaysa qodbadaha kaga qora xagga u dambaysa
waayo yaynu u sheegaynaa waxaana tahay inay messajka qaadaan mid walba intuu wixiisa yidhaahdo hadduu halkaa ka boodo waynu la xisaabtanaa waynu soo fadhiisinaa waa inay ku talagalaan ugu yaraan 4 saacadood inay nala joogaan markay ugu yar tahay ma laha qarsoodi ma leh xeerkan rag baa u shiray rag baana sameeyey weliba qaar aanan garanaynin waxay ku saleeyeen dhaqan ahaan diiniyan ma garanayo waxay ku saleeyeen fear of gabadhiisiina inantiisii nin kale guursato waa wax isaga ku jira ma wax kale reerkiisa aan ku jirin oo yani oo meel kale ka yimid inantaydii oo guursatay waxaankaas iyagu ka fakareen xaq kama fakerin xuquuq kama fakerin marka the buck stops biiradan gaaladu with them iyaga ayaa sameeyay waxan iyaga aanay tahay inay bedelaan siyaabaha kale ku bedeli karnaan waxaan u malaynayaa haddaynu ay dumar ku jiri lahaayeen baarlamaanka waxaan ma shaqeeyeen mid kaliya ku jirta taasina way hafatay yani waa laga badan yahay marka young baynu u baahannahay educated maskax furan diintiisa iyo garanaya dhaqankiisa xaqiisana garanaysa ay tahay inaynu doorano baarlamaanka aan ku dheeraaday baan u malaynayaa hadalka waa mahadsantiin assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبر السلام يا دمار. وحنو مهد علينا مرتقات كان. runtii waa laga soo wada hadlay tiraba 3 qof oo iga horeeyay baa aad u falanqeeyay qodobkan waa qodob kaliya ma aha dumarka oo kaliya taabanaya raggu taabanaya odayaashu taabanaya generationka inaga dambeeya ayuu taabanaya marka runtii wuxuu u baahan yahay falanqeyn aad u fara badan Somaliland waxay jirtay in ka badan 25 sano waayo xeerkan waxa asaas ahaan 1977 dagaalka xabashada baa lagu beys gareynaya oo la yiri gabadha reer Somaliland si aanay dadka cadawga ah ama la dagaalamaya aanay u guursanin xeerkan hala sameeyo til maantana sidaan ka warqabno dumar ahaan anigeeyana ku dhaho waxay u dhacday in la yiraahdo keen oday ka masuuda maadaama tahay gabadh si aad muxuu ahaayay lagu aqoonsaday inaad tahay Somalilander inana de oo aan nin ajnabi ama reer Somaliland ahayn aanu ku qabin runtii aad bay taabatay qof walbana waan ogahay inay taabanayso haddaba shayga kaliya hortaagan waxay tahay wayna hadalnaa salayn soo jeedinaa muddo badanna waa laga hadlay oo tiimo fara badan way ka hadleen sidee loo falgelin karaa oo stepkan ku xiga loo qaadi karaa oo looga fikiri karaa sidii adigoo kaliya ma aha inta qof ee ka dambaysa ama hablood waxa ma hadlay ilaaha dhamaanteen mar waxa jirtay de habluhu ama dumarku intooda badan 95% aanay lahayn cilmi iyo aqoon ay ku gartaan waxa ma hadlan aad ugu faraxsanahay ilaaha inteena halkan iskugu timiyay in kale inaga maqanba ka dhigay dad fahansan oo cilmi iyo aqoonba u leh dareemina kara xanuun ama taaban karto dhibtani anu waxa soo jeedin lahaa dumar ahaan war dumarkeena maanta waxaan ku jirnaa waqti olole boqolkiiba boqol baan oran karaa ururadu qofka ay ku xisaabtamaan waa dumar maxaa la inoogu xisaabtamaa waxaan nahay qofka kaliya ee markuu ninku yimaado beerkeedu nugul yahay ku calaacalo qofka kaliya uu habranaya inaad tahay buu ogyahay adeerka ka cid kuugu xiga
halkaa intaynu ka bilowno ma odhan karnaa ninkan aynu u codaynayno war sidaa uun ku taageerinaa ama adeer ama in adeer laakiin sharciganna hor yaala anaga xaqii iyo xuquuqdii aan ku lahayn maba lihine maxaad codkayga ugu xisaabtamiba muxuuba kuugu xisaabtami xaqii aad lahayd kumabuu siinin shakhsiyan nin buu kugu xidhay hadduu soomaaliya tagana aad ula guuraysood ku waaysid hadduu kaa tagana aad reer soomaaliya ahaanaysid wax ka xuni ma jirto bismillaahi raxmaani raxiim guud ahaanba madashu way salaaman tahay hay-adaha dawliga ah iyo kuwa caalamiga ahba institutionska dowladda inta way mahadsan yihiin anigoo ku hadlay magaca civil society-ga gaar ahaan organization la yidhaahdo WABO Women's Action for Advocacy and Progress Organization anigoo afkiisa ku hadlaya una jooga xaggan waxaan doonayaa inaan hota boogaadiyo teamka soo organize gareeyay programkan in laga hadlo laakiin waxaan odhan karaa waxa weeyaan waa waqti dambe ay nagu noqotay malaha iminkuun baynu baraarugnay hadday noqoto hablaha sharciyaqaanka ee dalka de kulley markii loo dhigayay anigu qaar badan oo aan asxaabnahay baa ku jira xagga sharciga markii loo dhigayay lagu yiri gabadhu waxay ku waaysaa markii nin ajaaniba guursato muwaadinimadeedaba ku waaysaa de waxay ahayd in markaasi ay ka qaadaan ololaha ay bilaabaan laakiin imanka waxay noqonaysaa waa kala guurkii xisbiyadii baa loolamaya waa xilliyadii u dambeeyey golihii baarlamaanka laftigoodii baa waxaa ku sii jira waqtigoodii gabaabsi ta keliyaan kaga bixi karnaa waxa weeyaan hablaha soo abaabulay maxay ahaatay programkan inaanay ka daalin annaguna aan garabkooda nahay sidoo kale inaanay isdhiibin ama aanay niyad jabin ama aanay doorashada codayna iyo waxa aanay ku mashquulin laakiin aynu ku adkaysano inaynu soo saarno hablihii baarlamaanka intay fadhiisan lahaayeen sharcigan indhaha iyadoo la isku hayo la ansixinayo hablihii ka qaban lahaa inaynu soo saarno ku dhiiradaan in doorashada aad ugu dhiirano ayaan aad maxay ahayd u dhiirigelinayaa qodobka aan diiday ama anigu aad aan u diiday waxaa ka mid ah in gabadha muwaadinada ay reer Somaliland ninka ajaanibkii markuu guursado ay muwaadinimadeedu waayso ninka Somalilandarka ana uu qaadanayo dhalasho dal kale isagoo ku waayin muwaadinimadiisii maxay ahayd Somalilandarnimada taa waxa ka badisay diinta islaamka sharcigeena ayaa wuxuu dhigayaa inuu hooyada siiyay xaq 3 jeer ah markii rasuulka uu yimaaday asxaabigu weydiiyay igu xaq leh rasuulku wuxuu yiri 3 jeer cali salaatu salaam dumarka hooyada ayaa xaq leh taas waxa micnaheedu sheegaysaa in islaamku xaq buuxayna siiyay laakiin ku dhaqankii laga laayahay raggeena jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku dhaqmaan xaqii uu siiyay kitaabka quraanka kariimka dumarka marka waxaan leeyahay culimo iyo rag yaan la isku kaayo soo raacin oo la oran xaq waxa idin siiyay muslimka idin dhameystiray laakiin laguma dhaqmo waa run kitaabka noo dhameystiray laakiin laguma dhaqmo waxay noqonaysaa qof kasta oo kitaabka quraanka kariimka iyo sharciga islaamku xuquuqda siiyay dumarka ka talaabsanaya inay daciif tahay islaamnimadiisa iyo ku dhaqanka diinta islaamka taasina aaminsanaan salaam calaykum بسم الله إن كستينا مضنين إن عن كهضل مدامة maybe أنا عن Somaliland هذا أنا إسكو حسابين لكن فكرة يربع ربعنا ما يقدر صدق أو يقول على تيكدي بهذا مدامة الله شيء ورقوا إليه القوة كسر جيده هرمركا يا حقوقه يا وحونا جاي دمر كودوديان waxaan filayaa walaalkeen dhinacu ka fiiniyay waa fikrad saxsan laakiin waxay kaga haboonay adduunka waxa la yiraahdaa sharciga wuxuu fiirinayaa xuquuqda iyo maslaxada dadka dhan marka intii aad ka fikiri lahayd gabadha reer Somaliland hadii ay nin guursato dadkii bay nagu badani way hadhowta wayna bedelayaan in lagu saleeyo la yiraahdo
qof alla qofkii ka soo horjeeda sharciga Somaliland citizenship ka baxay ama interestiga qofka xukumaya waa inuu qof taageeraya Somaliland gabadhu markaa ha ku keento Chinese ama Somali ama qof kale laakiin hadduu yahay qof ku qanacsan taageersan ilaalinaya sharciga Somaliland oo sharci sida ku qaato inaan lagu xilin iyadoo maartay sharcigii haddaad qof kala guursato dadkii baad nagu badinaysaa waa xagga haddaad ka fiirso waa fikradda laga yaabo inay maartay dabada ka riixaysa ama taageeraysay odayaashii ka fikirayay hableen hadday dad nagu soo badiyaan waddankii waa laga wareegayaa laakiin dhinaca kale ka fiirso oo sharcigu waxay dhahaan sharcigu wuxuu ka soo askumaa dadka so waxa la wixii ka soo horjeeda sharci dadku sameysteen hadduu qofkaas ku kaco yaa lagu qaadayaa laakiin aan loo arkin dhinacaas waxaan ku dari lahaa hablaha ama working groupka ama teamka arrintan wada meel badan baa idin furan waxaa jirta maxkamadaha campaignka waa inuu lahadaa irdo badan ama dhinacyo badan laga doodo maxkamadda dastuuriga intaa tagto sharcigan waxay ka soo saari kartaa haddii ay sharciga ku dhaqmayaan oo taageerayaan non void ama sharci aan jirin waa laga tuuriyo dastuurka so that's one area tan kale say gabadha sheegeen dumarka Somaliland waa lafdhabarta mujtamaca halkan ka jira saan anigu arkay hadda markaad fiiriso hadda hoolka nagu dhagan dadka abaabulaya wada waa dumar soo dumarka laftirkooda inay og yihiin oo la sharci oo maartay awareness ama wacyigelin lagu sameeyo in uu jiro sharcigan si ay taageeraydu ku noqdaan waa mid kale tan kale oo sucaad ay sheegtay sharciga islaamka wixii ka hor imanaya sharcigaas ma jiro soo maxkamadda laftiga hadaad geyso tiraahdo qodobkan wuxuu ka hor imanayaa sharciga islaamka waxba kama jira laga soo qaadaya maadaama uu maartay uu duudsinayo xaqeedii soo noqday inaan meel yar aan cadeeyo marka laga hadlayo xeerkan ama arrimaha dumarka marka inta badan laga hadlayo dadku waxay moodaan bulshada inteeda badan inay dumarku khaas tahay laakiin Soomaalidu waxay yiraahdaan waxa hooyada u dana ama uusha u dana ayaa ilmaha u dana tusaale ahaan haddaad tahay hooyo iyo aabbe reer Somaliland u dhashay sida sharcigu sheegay oo 5 caruur haysta oo 5 wiil haysta oo aabbahaas intuu cadhoodo uu xamar wasiir ka doonto iska tago 5taa wiil waxay noqonayaan stateless marka xeerkani kaliya ma dhaawacayo ama maayn maxay saameynayo dumar kaliya laakiin adigoo wiil ah hadii aabbaha lagala noqdo maxay citizenshipkii aduguna waa saameyn bay ugu yeelanaysaa marka aragtideena aynu meel fog wax ka eegno oo aynu ballaadhino iyo inaan ku soo koobin oo kaliya dumar buu wax yeelaya aad baad u mahadsantiin bismillah magacaygu waa Liibaan Maxamed waxaan doonayaa inaan hal qodob inaan sheego sharci baa wax kasta ka yaala caalamka haday noqoto gabadhu ninka ay guursato haday nin guursato haduu doono ha noqdo nin ka soo jeeda Chechnya ama Israel laakiin xaq ma u leeyahay ama iyadu ma u leedahay inay wadaniyada ka baxdo iska daan iyadu calashan citizenshipka ay ka baxdo laakiin ma calisaga wadan noqonaya laftiisa ayaa ninka iyadu guursato isaga iyadu waxa sharci u leeyihiin xaqna ay u leeyihiin inay baasaboorka iyo dhalashada wadanka ay helaan diin ahaan hadaynu ku noqono inuu eegno ilaahay aayad quraan wuxuu ku yiri walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf inta idinku doonaysaan bay iyaguna doonayaan hadii dumar yihiin Soomaa taanu hadaan doonay gabadhan guursado inay wadaniyad noqoto inantuna kay guurstaan wadan noqdaan ودوان ده القرآن كانوا لو سمي ده شرع كانوا لو سمي مركا واحد دونيا إن عن عديانا تاجر سنة هاي إن هلان citizenship كودا حقنا يوليه واحد يعيد الله فريسان كرانا أنا هين anytime I possible لقطنا برا مكان الأسعار دقو
ilaa madaxweynena la socdo maaha inaan idinka qashqashayo hawsheeda socoteen laakiin wax kastoo la qabanaya waa wuxuu u baahan yahay baleen ama qorshe haddii aad imika discussion la sameeyay discussionka maxaa qorshe inooga yaala se maxaa structure aynu samaynanaa tallaabooyinkaynu qaadanaa maxay tahay weli taas ma cadda marka waxaan rajaynayaa qolada soo diyaarisay dheerooga inay ku darsadaan bal istaraatiijiyadda ay ku ablay garaynayaan sidii xeerka wax looga bedeli lahaa waana mahadsantiin dhammaantiin waxaan ka hadlayaa caqabada guud ee suurtagalaya Soomaaliland saameyn ku yeelata ama jiritaankeeda ku yeelata waa ogtiino inantii waxa la yidhi haddii ay nin ajnabi iyo gursato Soomaaliland dadkay waaysa ma u malayn kartaa mise ma dhici karta iyadoo Soomaaliya doonaysa inay soo noqoto Soomaaliyeed inay gursadaan boqolkiiba 80 gabdhaha Soomaalida si ay foom u siiyaan isla markaana jiritaanka Soomaaliland caqabada بعدين هاي مواطنة كان بيبع الناس ضوء ما أنسني وها أي جرا علم دين السنة قبل يستعمل لكن ما دام فوق عنا يا ما دام سومالي ندلو هنا أنا كسومالي إنسان هنا كلا شيء إنسان هنا تحتني كلا شيء مليون كلا ما كسومالنا عقبال تلاقي كلهم تحتوه فارس لو سؤال السلام عليكم دورتو كحوم هو ملا ددكي wada biis bay noqdeeno okay dadkii wada biis bay noqdeeno mar hadii la yiraahdo wala soo xidhaya niyada waxa la wada galiyay in lagu kala tagayo laakiin anu 1 point baan silaa ku kordhi maadaama scientific u badanahay waxa silaa ku kordhi babyga dhalanaya horta wuxuu ka kooban yahay 26 chromosome marka 23 hooyada ka imanaya iyo 23 aabaha ka imanaya marka hadii originka la doonayo in la ilaaliyo not just de xaga mother kun inuu originku ka lumayo laba dhinac buu ka lumaya marka hooyadii ajnabiga ahayd ee wadanka soo gashay iyaduna waxay leemanaysaa jiin kale aabuhu wuxuu leemanayaa jiin kale marka waxaan filayaa halka marka laga eelo scientifically waa loo siman yahay labadiiba waxa soo galaya jiin kale oo origin kale wata ama xagga hooyada ka yimaada ama xagga aabaha ka yimaado marka xeerka waxaan u maleynayaa in loo siman yahay xagga aabaha iyo xagga hooyada assalaamu calaykum horta de kaliya taayno waxa muhiim ah inaynu sheegno xeerkan oo guud ahaan maxaa la dhaliilo badan leh maynu arag xeer afrika qodob oo kaliya ka kooban xeerkan dhaliisho kale uu leeyahay xataa ciqaab ma laha qofkan hadduu xeerkan jabiyo maxaa lagu ciqaabayaa ma laha dumarka kaliya tan wax ka sheegnay ilaa xataa carruurtii ayuu isna wax ka sheegayaan aanu si dabcan muwaadinimadoodii aanu taabanahayn marka waxa muhiim ah xeerka inaynu ammaanada ku samayno aynu dib uga tagno sidoo inta xildhibaan ku sheegayna qodobka ugu muhiimsan ee ayo tallaabada ugu horeeya aan qaadi karnaa iyadoo in dhanka maxkamadda marno maadaama aynu aad ugu baahan nahayna gudadan imanka hawshan gashay waxaan ku boorin lahaa aan aad ugu boorin lahaa markasta la garab taaganahay in aynu tallaabada ugu horeeya aynu qaadno ay noqoto inaynu xagga maxkamadda ka galno aynu horena u dhaqaaqno tallaabadeena maxaa la yidhahdaaye qodobkan kale dumarku anu ma garan karo sababta keentay in gabadhii kale ajnabiga hal laynaga doorbido taasina waa qalad aad u weyn ma garan karo nimankii intay isu fadhiisteen meel ay soo wada fadhiisteen yidhi xeer baynu samaynaynaa ee haddana dumarkoodii ka doorbidin gabadh kaloo ajnabiga wallahi waxa laga naxaa marka bal inagoo maxaa la yidhahdaa aan cadfadinayna qaadaynin haddana hadda waynu garan karnaa xeer marka la abuuraayo mid kale yaan laynagu waxay odhanayaan wax idin diidayaan ma jirto dee waa af baa laga yimi laakiin xeer markay tahay waa waxa qoran madaxweynaha ansixiyey dee markaa tay afka ka leeyihiin waa inay noo qoraano simbalidda ya marka waxaan odhan lahaa si dhaqso ah aynu u bilowna hawshan aynu u gadagalno wax kastoo iyo dee garab kastan aynu la barbar istaagno hablahana aynu la shaqayno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waa gudoomiyaha guddida arrimaha gudaha weeyaan
marka xildhibaanku isaguna xeerku inooga hadlaya waxyaabaha uu ka qabo waana muxuu haaye xildhibaanada aynu rabnaa dhowtana inay muxuu haaye aad inoogala shaqeeyaan hawshan markaan ka shaqeyna insha Allah kusoo dhaweeyay بسم الله الرحمن الرحيم horta dee waxaan si kelisaa baan idinkula soo kulmay kamaan warhayn workshopka runtii waanse markaan arkay workshopku inuu xeerka ku saabsan yahay citizenshipka waan xiiseeyey waayo horaan maskaxda ugu hayay xeerkan waan u dhaarsanaa waa runtii xeer waa xeer aad moodo inaanu la socon guud ahaanba spirit ahaan iyo maxaan ku dhahaa qoraal ahaan intaba aanu la socon shuruudan casriga ah ee Somaliland iyo constitutionka midna waxaan filayaa dee waa dooda bar baan soo gaadho looma baahnaa inaan ku celiyo maxaan ku dhahdaa sida uu dastuurka uga soo horjeedo gaar ahaan qodobka 8aad sinaanta muwaadiniinta waa xeer runtii aad moodo inuu qabyaaladaysan yahay oo qabyaalad mentality qabyaaladaysan uu ku dhisan yahay xeerkan wuxuu u baahan yahay in si degdeg ah loo amangareeyo oo runtii guddigayaga ayaa shaqo ku leh xeerkan waana nagu jirtay xisaabta xeerarka inkastoo xeerar kale oo degdeg ay dee kuwii doorashooyinka waxaasi ay dee mudnaanta ka yeesheen haddana wuxuu noogu jiray kulleyba aniga igu jiray xeerarka u baahan in la rifaas-gareeyo dib loo celiyo laba dariiq labadaba waa la samayn karaa waa kow horta maxkamadda dastuuriga waxaan qabaa ama nagaad ha noqoto ama koox haweenka ha noqoto ama ururada human rightska ha noqoto way geen karaan maxkamadda dastuuriga oo xeerkan waa la nulafay garayn karaa sababtoo ah si toosa oo cad ayuu dastuurka uga soo jeedaa waa discriminatory meelaha qaarna halkii aragtidii maxaan ku dhahdaa citizenshipka dowladnimada ku salaysnayd waxaad moodaa inuu ka dhadhamayso reer hebelnimo ay ka dhadhamayso talabaad ee muhiimka waxa weeye sida kale lagu bedeli karo waxa weeye in guddigu amendment sameeyo baarlamanka la geeyo dabeedna baarlamanku xeer cusub uu soo saaro haddii maxkamaddu ay nulafaagarayso dabeedna wuxuu imanayaa kulliba taa danbuu imanayaa oo baarlamanku waa inuu xeer soo saaro laakiin way kala dhaqso badan yihiin oo waxaan qabaa ta maxkamaddu inay ka dhaqso badan tahay ta baarlamanka waayo baarlamanka xeerarku iska jiitamaan mararka qaarkoodna haddii aan loo arag priority waxaa laga yaabaa muddo dheer inuu golaha dhexdiisa uu warwareego haddiise go-aan maxkamadeed uu ka soo baxo waxaa khasab noqonaysa inuu noqdo xeer degdeg loo bedelo priority la siiyo waxaa kaloo muuqata xeerku inuu aanu la socon xeerarka caalamiga ah human rightska iyadoo dastuurkeenna waajibinayo in xeerarka dalku maxaan ku dhahdaa specially wixii ku saabsan rightska iyo freedomska dadka qaybta saddexaad baan filayaa dastuurka qodobada 21aad haddaan khaldanayn waxay si cad u sheegaysaa in qaybtaasi loo fasiri karo oo keliya
si waafaqsan international conventionska of human rights and civil libertieska sida muuqatana xeerkani uu baalmarsan yahay oo ma aha waxaan filayaa labada qodob way ku filan yihiin oo labaduba dastuurka ay ku salaysan yihiin in xeerkan la nullify gareeyo waxaa kaloo muuqata dee takoor ku jira laba qof maxaan ku dhahdaa ama waxa la yidhaahdo discriminatory maxaan ku dhahdaa attitude inuu aada uga muuqdo oo ah in dumarku aanay lahayn the same rights uu ninku leeyahay labadii walaala ahaa farsamo ahaan waxaan filayaa xeerka adino cid draftkaasay laakiin maaha xeer technically isagu sidiisa u shaqayn kara waayo waxaa ku jira gaabab fara badan waxaa ka maqan principleskii uu xeerkan ku shaqayn lahaa waxaa ka muuqata iska horimaad fara badan oo ku jira xeerku wuxuu u baahan yahay in la modernize gareeyo oo xeerarka casriga ah ee maanta adduunka maanta inagu ictiraaf baynu doonaynaa dal dimuqraadi aynu leenahay dastuur baynu leenahay dastuurkeennu dhaliilo kasta ha lagu tilmaamay laakiin waa dastuur mabaadi'diisu ay mabaadi' casri ah ay tahay oo maxaan ku dhahdaa waafaqsan international lawga international maxaan ku dhahdaa practiceska best practices of international law waafaqsan waxaan qabaa farsamo ahaan lafteeda inay tahay arrin kale oo muhiim ah oo xeerkan xataa dhaqangalkiisa ama shaqayntiisu keenayso in maaragtay dib loogu noqdo oo la hagaajiyo marka intaasaan horta idinla sheergaran lahaa waxaan idinka codsanayaa in wixii ka soo baxaa warbixinta noo soo gudbisaan conclusionska reportka guddiga arrimaha gudaha